iyadoo suduuban waxa sheegaysaa maanta taariikhda hijrigu inta tahay baad sheegaysaa maalinta bisha sanadka waxaad sheegtaa magaca sheekha kaliya ama qaariga kaliya ee Soomaaliga ah ee aynu ka dhageysano idaacadda Quraanka Kariimka waxaad sheegaysaa Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam waxa jirtay mar isagoo safar ku jira oo dul tagay xabaashi hooyadii marka asxaabta wuxuu ku yiri laba arimood baan Ilaahay weydiistay midna wuu iga aqbalay midna wuu iga diiday labada arimood maxay haayeen tawaadkeed buu sheegay mid kamid ah aayadaha ugu yar Quraanka Kariimka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan idil xaaltiin baddaawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena su'aalaha Ramadaanta oo maanta markii labaad iyo maalintii labaad ay maalgelinayso shirkadda Kabaltan Group oo iyada aad ka helayso adeegyada kala duwan ee sharaabka oo ay ka mid yihiin caanaha bartiiqa saytuunka xabxabka iyo noocyo kala duwan waxaana ugu soo agaagi kartaa bartamaha magaalada Boorama gaar ahaan ka soo horjeedka meherada Boorama Seed House ama dhinaca waqooyi waxay kaga dhigan tahay cusbitaalka raajada la isaga sawiray Boorama Diagnostic Center haddaba qaybteena labaad ee barnaamijka su'aalaha ayaynu maanta u guda gali doonaa waxaan u yeedhayaa ka qayb qaataha ugu horeeya asxaabta ugu horeeysan ku soo dhaw marka hore magacaaga Musa Abdi Arab Musa barnaamijka hore ma uga qayb gashay maanta ugu horeeyay waayahay Musa su'aasha waxaad dooranaysaa number 1 ilaa number 5 oo baad hal su'aal dooranaysaa number 3 waxaad dooratay number 3 number 3 waa su'aal aad u sahlan waa su'aal yar oo basiida waana su'aal diiniya waxaad sheegaysaa mid kamid ah aayadaha ugu yar Quraanka Kariimka aayadda ugu gaaban Quraanka Kariimka ugu yar xagga akhrinta qulwala suuradda maaha aayadda ugu gaaban wada Quraanka ma dhigata ilaa halkeed ka gaadhay ilaa adu bartamaha jiiska 15 ka 15 ilaa suuratul Maryam ilaa Maryam ma hubtaa aayaddii ugu gaabneed ee akhriday uu soo qaba hadaba qul a'uudu birabbilnaas wali suuradadii sheegaysaa bal waxaan u malaynayaa inaanad su'aashan fahmin baan malaynayaa su'aashu ma fahantay maxaa ku yiri aayadda ugu gaaban okay aayadda ugu gaaban sheeg inta ma hay waayahay aad baad ma santahay insha Allah marka dambe ayaad keen doontaa markana waxaan ku xijisiinayaa soo dhawow ka qayb qaataha kale ku xiga ka qayb qaataha waxa uu filayaa in wajigiisa in badan aan arkay hore barnaamijkooda uga qayb shoma in badan maxaa magacaagi Abdulbaasid Xasan barnaamijka aad baad xiisanaysaa miyaa si wanaagsan maalin kasta waad joogtaa waa la helaa Ramadaantan ma ka qayb gashay mise jeer ilaa 4 jeer ma isla Ramadaantan war malaha 4 jeer ma ogolaanne may bal horta naga yara hubi annagoo 4 jeer ma ogolaano imikadan baan ku garanayaa inaan lagala qayb gashay laakiin su'aalo way badan uu ka badan barnaamijyada keena oo waa runo meelaha kale saas weey keenan baan ka hadlayaa keenan may maanta koowa inta Ramadaanka saas jeclay hadaan maalin uu sanadeen jirin sax tii kale hore laakiin tii kale hore si fiican soo soconay si fiican waayahay bal magacaagii ugu celi hadda magacaygu Abdulbaasid Xasan Abdulbaasid kal hore waxyaabo la weydiiyay maxaa kamid ah kal hore maxay la weydiiyay waxa kamid ah labada nabi ee bar wadaaga nabi Maxamed samadu ku sii maray leeyahay micraajka markii la dheelmiyay sax si fiican labada nabi ay ahaayeen bay markaa ahayd sax baad garatay guul baan halka ka gaaray abaalmarinta wada shay abaalmarinta waan helay waayahay maanta waxa ku rajeynayaa inaad heli doonto abaalmarinteedii 1 ilaa 5 oo 3 ka dhex boodo lambar 2 waayahay waxaad dooratay lambar 2 waa su'aal yar oo fudud waa su'aal madaniya waa su'aal qaybtii labaad ee su'aalaha ka soo hadhay su'aashan waxay ku jirtay shalay toole waa la garan waayay su'aasha waxay ku leedahay waxaad sheegaysaa magaca taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliland ee ugu horeeyay taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliland ee ugu horeeyay niyo hawaataan isku day su'aasha soo qaba ugu horeeyay Soomaaliya taliyihii ciidanka booliiska waxa weeye
taliyihii ciidanka militariga Soomaaliland ugu horeeyay miyaad liqsantahay waqtigaad siinaa mise waanad hayn niyahow waqti ilay siiyay noqon waan hayay laakiin ugu wareegayaa sax taliyahaas wuxuu geeriyooday waa andheereyn marka hadda magaciisa la kaba laqsan waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay insha Allah barnaamijkeed ka dhex maqli doontaa waxaan filayaa xagga soo joogso ka qayb qaataha ku xiga marka hore magaca cabdiqani maxamed lagay cabdiqani ma fiican tahay khayriyato maxaad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa dhiska gudyaha gudyaha dhiska si fiican ustaad baa tahay dhismihii imika xoog buu kor buu soo kacaa leeyay ما شاء الله هذا كسيف عم بصوا كسيف عم بس مقال انتي هره مستر بلانكا xanibay هذا كسيف عم بصوا تاوش waayahay waxa ku siinayaa 2 4 5 mid dooro 2 4 5 4 5 سما mid dooro waxaan doortay 5 baad dooratay soo dhawow 5 su'aashani waa su'aal fudud su'aashani ma jirto su'aal ka fudud oo aan halka ku hayaa su'aal ka fudud ama ka fududaan lahayd oo aad ka jawaabi lahayd ma jirto waana su'aal diiniya su'aasha waxay ku leedahay iyadoo si duuban waxa sheegaysaa maanta taariikhda hijrigu inta ay tahay baad sheegaysaa maalinta bisha sanadka sanadku maalintu waxa weeyaan waa sabti hay taariikhduna waxa weeyaan taariikhda hijri waxa weeyaan 13kii 1400 13kii hay aksiyaro kale aan ku yarfaasiyo taariikhda miilaadiga hantago maanta waxa weeye 23kii bishii saddexaad 2004 maxaan sheegay markaa maalin iyo bil iyo sanad taariikhda hijriga sidaa u sheeg taariikhda hijriga maanta intay tahay waxa weeye 13kii Ramadaan bishii Ramadaan taariikhduna waa 1400 sanadka ma haysid hadda abaalmarinta ma helaysid haddii aanad sanadka gelinin because su'aashu waa su'aal aad u fudud waa su'aal u baahan in aanu qofka ugu horeeya qaldin marka bal isaga yara nasiibsa hadda ku suurto gasho haddii kale abaalmarin ma helaysid 1400 ukaadii ha u sheegin kada 45 بيبرد عادي وشاك ما حد يكون 1400 أفرتني شنتي وين أفرتني شنتي معناه ما أفرتني شن بعد كذا شنيا صح سيدا لو قلنا شنيا أفرتن 25 وياي حتى ما يمكن اسكو قبو عادي وغير ودعيلي تاريخ ذا سي في علم كو ودا شيك حتى انتي waxa weeyaan taariikhdu waxa weeyaan waa 13kii Ramadaan haye 13kii Ramadaan haye 1400 aad iyo aad baad mahadsantahay waxaad tahay ka qayb qaatay ugu horeeyay ku guuleystay su'aashan laakiin waxaan filayaa su'aashu inay iska dhib yarayd dadkan ku ag jooga iyo kamarada lagugu hayo iyo markaad aragto baad wax kale ka sheekaynaya qofkii isagoo garanaya marka hore marka indhasakeer waxba inagama gelin marka waxaan ku siinayaa abaalmarin ay bixinayso shirkadda Kabaaltan Group waxaad ka helaysaa noocyada kala duwan ee adeegyada sharaabka waxaad ugu agaagaysaa ka soo horjeedka Bournemouth Sweet House haddii ilaahay idhaahdo markana waxaan soo dhaweynayaa ka qayb qaataha ku xiga magacaaga Ahmed Atiy Yunus Ahmed Atiy Yunus Ahmed waxa ku hayaa halkan lambar 2 iyo lambar 3 baad mid dooranaysaa lambar 3 baan doortay insha Allah waaye waxaad dooratay su'aasha lambar 3 Ahmed waa su'aal fudud marxaba waa su'aal iska madaniya su'aasha waxay ku leedahay waxaad sheegtaa magaca sheekha kaliya ama qaariga kaliya ee Soomaaliga ah
ee aynu ka dhegaysanno idaacadda qur-aanka kariimka cabdirashiid cali suufi cabdirashiid cali suufi cabdirashiid cali suufi waa sheekh cabdirashiid cali suufi waa dhegaysataa maalintuu soo galaa wuxuu soo galaa idaacadaha qur-aanka idaacad qur-aan marmar way soo geliyaan marmar madartay maalin buu iska leeyahay waa sheekha keliya soomaalida inooga jira jimcaha soo galaa sax waxaan naga xasuusinaya idaacadda qur-aanka kariimka dhammaan magaalooyinka Soomaaliland oo dhan way ka siman yihiin magaalada Boorama markaad dhegaysanayso dee jimcuhu soo galaa waxaan filayaa magaalooyinka kale inay nala mid yihiin inta kale laakiin waxa ku jira culimo kale ku jira waa jaaniba sheekh Xasan Soomaaliya qaarigeena aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad ku guuleysatay abaalmarin aanu ka keenay shirkadda Kabaltan Group waxay bixinaysaa waxay haysaa adeega sharaabyada noocyada sharaabyada waxa kamid ah sharaabka mataqaan xababkiyo sharaab laga dhigay foster liintii kale caadigii caanihii bartiiqi dhammaan noocii liinta laga dhigay aad iyo aad baad u mahadsantahay insha Allah weeyay soo dhawow markana waan dhawahay magacayga Maxamed Ibrahim Sheekh maxamed ibraahim sheekh maxamed barnaamijka hore ma uga qayb gashay aad iyo aad haa dhowr horena ka qayb qaatay dhowr dooro hore sax rabadaanadii hore si fiican aad iyo aad oo ka rabadaantii hore aad ka qayb gashay haa marka rabadaantii hore su'aashii la weydiiyay ma xasuutaa rabadaantii hore su'aashii la weydiiyay aad ma xasuutaa maxay ahayd waxa la weydiiyay waa kuma wadanka qaaradda Afrika ugu weyn waa ku guuleystay wuxuu ahaa waa Algeria sax weeye marka kaliyeena ahayd mar labaad ma gashay mar labaad iyo mar saddexaad dhowr jeer oo dooro horena oo kale de sanadkii hore bay tani laakiin si dooro ka soo reeyna oo kale weeye sanadkan waxa ku rajeynayaa bal inaad ku guuleysato insha Allah billahi karim su'aasha number 1 ba halkan soo hadhay haye oo su'aal diiniya haye ma sha Allah su'aashana waxay ku leedahay waa horta dadka marka su'aal weydiina xiraahdaa su'aashana way fududahay laakiin su'aal diiniya su'aashii aan isleeyahay daanu marka waa aragtideeda waxa laga yaabaa inay aad kugu adkaan ها ان شاء الله لكن way fududaani su'aasha waxa kula waxaad sheegaysaa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waxa jirtay mar isagoo safar ku jira uu dul tagay xabaashi hooyadii marka asxaabta wuxuu ku yiri laba arimood baan ilaahay weydiistay midna wuu iga aqbalay midna wuu iga diiday labada arimood maxay haayeen inaad suwaadkeed u sheegtay maanta nasiibka xabadaada soo galiyay laakiin bal inaad horay uu maqashay bal aad tijaabi maxaad ugu tiri saaxiib nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam xabaashi hooyadii buu dul tagay marka asxaabtiisu marka dambe uu sheegaya wuxuu leeyahay laba arimood baan ilaahay weydiistay mid buu iga aqbalay midna wuu iga diiday labada arimood maxay haayeen baa la rabaa labada arimood oo asxaabtu sheegay marka yiri fogtahay ha tanawatu caadi adag ma insha Allah mar dambe rajeynaya in xabad fudud ugu soo hagaagtaa diilaado aad iyo aad baad u mahadsan tahay ma ka faa'iideysay aad hore baad u garatay su'aasha horta jawaabta hore ma jawaabta markii dhow ma la garatay jawaabtii markii dhaweyd kii dhaweyd waqtiga laysiiyay imika barnaamij ma guuleysan wala weeyday ma guuleysan ha haddana halkaas imika ka soo qaylido waxa tiroo ka faa'iideysanaya su'aashaad ka faa'iideysanaysa maqlaysid ugu dambeysay diinigii ha maxay ahayd su'aashu waxay su'aashu rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu saxaabiisa u sheegay ilaahay inuu laba shay ka bariyo midna laga aqbalin midna aan laga aqbalin طبعا soo dhaw su'aasha ma garanaysaa su'aasha saan isleeyahay weeyay bal su'aasha looga jawaab su'aasha haddaan ka jawaabo rasuulka kaleey salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka bariyay inuu qabriga hooyadii booqdo waa loo ogolaaday inuu ilaahay u baryo inuu dambi dhaafo haddana uu weydiiyey marka talgama gulaan waa laga diiday inuu yaani hadda xabaashi hooyadii soo booqdo waa laga ogolaaday laakiin inuu dambi dhaaf ilaahay u weydiiyo muslimiinta taysiin kale lagama ogolaan sax aadiyad baad ma tahay weydiin wuxuu go'ansantay degmada Abwaa la yiraahdo ma kiimidina u dhaxaysa ma kiimidina u dhaxaysa isla markan oo soo mariyayna safar buu ahaa labada madiino buu dhaxay waayahay aadiyad baad ma tahay kulay meel kasto arrin kasto gashay nabiga in la barto war waxa filayaa hadda abaalmarintaada inta baadi goobaysa wada
maanta laakiin waa ka faa'iidaysi buu ku helay maanta maadaama su-aashu adkeyd inta badan ma ogolaanan qof soo noqdo laakiin dhallinyaradan noqonaysaa ka wada jaakidhay aad iyo aad baad u mahadsan tahay naga guddoon Kabaaltan group halka maaragtay waxaad tegaysaa maaragtay dhakhtarka lafaha lagu sawiro sax ama iskaanka dadka la saaro waa ka waqooyi kaga dhegan Kabaaltan group halkaad soo booqo markana aadiye su'aasha kale ee ka faa'iidaysiga ayaa markana waxa weydiinaynaa asxaabta kale soo hadhay soo dhawow magaca Cabdirashiid halkan waxa ku haya su'aalo soo hadhay waxa weeyaan ka faa'iidaysi hore laakiin ma uga qayb gashay barnaamijka ma wali kama qayb galin waa maalintii koowaad ka qayb qaatay waayay su'aasha waxa kula waxaad sheegaysaa magaca taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliiska Soomaaliland magaciisa وني سؤال ما هي وايه هذه بعض ما تصنتهاي هذه بو ما تسيهاي كقيب قاطاهاسي داوديال waxaan asxaabteena kale ee ku xidhan dhinaca baraha bulshada sida Facebook YouTube iyo TikTok ayaa waxaan u bandhigaynaa su'aashan waxay noqotay kale su'aashii ugu adkayd maadaama laba maalmood intii qof ee fursadda u heshay ay ka jawaabi weysay su'aashan aad ka soo jawaabaysaa waxaad soo sheegaysaa magaca taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliiska Soomaaliland oo saddexan magaciisa saddexan baad soo sheegaysaa haddaad doonto magaciisa afran baad soo sheegaysaa laakiin ugu yaraan saddex baad ka soo dhigaysaa guud ahaan laakiin si aad komadka uga faa'iidaysato marka hore postiga like saar kadibna share gare barnaamijkana guud ahaan intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa taniyaytaynu dib u kulmi doonno barnaamijkan la mid ah inta ka horeysa idil ahaantii waxaad ku sii dhaafaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisan